bismillaahi raxmaan raxiim ismaqali daawasho haboon halkani waa janalka halbeega wararka saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan warka subax qodobadaan idiin hayna subaxnimadana waxaa ka mid noqonaya al-shabaab war xasaasi ah kasoo saaray tiradii askartii ay ku dileen duleedka magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose dowladda federaalka soomaaliya oo qarisay in askar looga dilay gobolka shabeellaha hoose iyo faahfaahinta tiradii askartii lagu dilay oo soo baxaysa cabduqaadir cosoble hogaamiyaha xisbiga ilays oo rajaxumo ka muujiyay xaalada dalka uu marayo waxauna uu dowladda federaalka soomaaliya u diray baaq xoogan xaalada doorashada galmudug oo sii cakirmaysa iyo khilaaf hor leh oo cirka isku sii shareeraya axmed maxamed islaam axmed madoobe hogaamiyaha maamulka jubbaland oo ugu baaqay madaxweynaha soomaaliya in wax walba lagu dhammeeyo wadahadal farmaajada kismaayo wadahadal uu yimaado qodobada ayaan idinla wadaagi doonaa saaxiibayaal taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 13 bisha 10 Oktoobar 2019 u diyaargarooba saaxiibayaal faahfaahinta qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan janalkan halbeega wararka subscribe dhaca calaamada kambalka furta muuqaalkana si share gareeya saaxiibayaal si uu gaaro saaxiib badan oo aanan janalkan rukumanin aynu ku bilownay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay qarisay in askar looga dilay shalay duleedka magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose faahfaahin kala duwan waxa ay ka soo baxayaan askartii tiradii ku dhimatay qaraxyo shalay ka dhacay duleedka magaalada marka in ka badan 4 askari oo ka tirsan ciidamada danab ayaa lagu dilay qarax ka dhacay duleedka magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose in ka badan 4 kana qaraxaasi waa ay ku dhaawacantay askartii lagu dilay halkaasi ayaa waxaa la soo gaarsiiyay magaalada Muqdisho halka dhaawacooda lagu daybayo isbitaalada ku yaala gudaha magaalada kadib qarax gaari oo lagula aagtay deegaanka dhanaan ee duleedka magaalada marka ay ciidamada daran waxay gubeen gaarigii lagu qarxiyay waxaana ay soo qaateen dhaawacadii meydkii halkaasi ka dhashay dowladda federaalka Soomaaliya wali wax war ay ka aysan soo saarin askartaasi shalay looga dilay duleedka magaalada marka waxaana ay qarisay in askaralkaasi looga dilay khubaro fara badan ayaa waxay isweydiinayaan sababta dowladda federaalka Soomaaliya maalmihii la soo dhaafay u qarinaysay dhibaato ka soo gaarta tacadiga ay u geystaan xarakada al-shabaab balse ma aan markii ugu horeysay oo weerar caynkaan oo kale ah dowladda federaalka Soomaaliya askar looga dilo haddana ay qariso al-shabaab ayaa maalmihii la soo dhaafay waxay laba jibaarayeen tirada dhibaatada ay u geysanayaan askarta ka tirsan ciidamada danab oo ciidamada aadka u tababaran oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya geesta kale al-shabaab ayaa waxay war ka soo saareen tiradii askartii ay ku dileen magaalada marka dowladda federaalka Soomaaliya ay ka dileen warka soo baxay dagaalyahanada al-shabaab ayaa lagu sheegay in qarax ka dhacay shabeellaha hoose inay ku dileen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Hirshabeellana waa ay ku dareen qaraxaas yeeshee waxa weerarkaasi ayaa dhacay maalmo ka hor kadib dagaal dhexmaray ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa al-shabaab qaraxa koowaad ayaa waxa ka dhacay duleedka degmada Walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose al-shabaabna waxa ay sheegteen in halkaas ay ku dileen 4 askari oo ka tirsan ciidamada ay sheegteen inay ka soo baxeen saldhigga Beledoogle sidoo kalena qaraxaas ayaa waxaa lagu dhaawacay in ka badan 10 kale waasta ay sheegteen xarakada al-shabaab si gaar ah al-shabaab ayaa sheegtay in ciidamadan ay wateen gaadiidka dagaalka waxaana ay sheegeen in gaari halkaasi ay ka gubeen dagaalyahanada hubaysan ee xarakada al-shabaab ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa ay joogteeyeen qaraxada la eegtaan gawaarida ay wataan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya hogaamiyaha maamulka Jubbaland ee shalayta lagu caleemo saaray magaalada Kismaayo ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda dalka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa loogu baaqay in uu magaalada Kismaayo u yimaado wadahadal uu la galo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe hogaamiyaha maamulka Jubbaland ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ugu baaqay in wadahadal uu yimaado magaalada Kismaayo madaxweynaha Jubbaland oo lagu caleemo saaray magaalada Kismaayo ayaa ku dhawaaqay in Jubbaland ay diyaar u tahay in dowladda dhexe kala hadasho waxyaabaha ku aadan maamulka dowlad goboleedka Jubbaland madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa waxa uu shaaciyay in maamulka Jubbaland uu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo dowladda dhexe asigoo dhanka kale ugu baaqay in laga garab siiyo dowladda federaalka Soomaaliyana ay ka shaqeyso midnimo iyo wadajir waarta
oo Soomaali laga dhaxdhaliyo. Sidoo kale waxa uu sheegay in ay lama taabtaan tahay midnimada ummadda Soomaaliyeed isagoo ugu baaqay Soomaalidu inay ka wada shaqeeyaan midnimo iyo xasilooni. Axmed Madoobe ayaa dhinaca kale sheegay inay dowladda dhexe ku tixgelinayaan howlaheeda shaqo balse aanan dowladdu aysan ku ixtiraami doonin inay soo farageliso arrinta maamulka Jubbaland. Axmed Madoobe ayaa waxa uu marar badan ku celceliyay in loo baahan yahay in laba dhinac ay ka wada hadlaan wixii jira isla markaana madaxweyne Farmaajo ay ugu yeeraan ama ay ugu baaqayaan wada hadal uuna yimaado magaalada Kismaayo si wax walba wada hadal loogu dhameeyo. Geesta kale madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdilaahi Dani ayaa labada dhinac ugu baaqay inay miiska wada hadalka wada yimaadaan kana wada hadlaan wax walba ee tabasho ay jira. hadalkan ayaa waxa uu jeediyay madaxweynaha maamulka Jubbaland xafladiisii lagu caleema saaray taasoo ka dhacday magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Jubbaland taasoo si weyn loo soo abaabulay. Cabdiqaadir Cusable hogaamiyaha xisbiga Ilays aan xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu dowladda federaalka Soomaaliya ugu baaqay inay haatan dalka xaaladda uu ku socdo wax ka bedesho. Cabdiqaadir Cusable ayaa waxa uu ka diray xaaladda dalka haatan uu marayo waxa uu sheegay inuu marayo xilligii burburkii dowladii dhexe kadib marxaladihii kala duwan uu soo maray. Hadda ayaa waxa uu sheegay in dalku marayo xaaladihii ugu adkaa abid. hadalkan ayaa waxa uu ka sheegay xafladu ka qayb galay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Jubbaland taasi oo lagu casuumay laguna caleema saaray madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Cabdiqaadir Cusable ayaa waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta sida weynka u mucaaradsan dowladda federaalka Soomaaliya waxaana marar badan dhaliilo xoogan uu u soo jeediyaa dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. kaliya halkan ka yiraahdo madaxda qaar oo aan hilmaamay ama aan sheegin xildhibaanada iyo senatarada oo ugu horeeyay walaalkay maaragtay hogaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur dhammaantood waa salaamaya iyo ruux walba aan ka tagay oo aan magaciisa sheeginba. maanta munaasabadan qiimaha badan sharafta badan oo dhammaanteen aan u nimid inaan ka wada qayb qaadano ama aan muujino dareenkeena ah inaan raalli ka nahay sida u dhacday. waxaan jeclaan lahaa laba arrinba inaan idhaahdo. waa mid inaan la hadlo dadka siyaasiyiinta ah oo maanta halkan isku wada yimid dhammaantooda iyo inaan la hadlo xukuumaddeena oo hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo labadaba inaan hadal ka idhaahdo meesha tan. Soomaaliya laga soo bilaabo waqtiga burburkeeda uu bilaabay iyo ilaa iyo hadda waxa uu maraa xaalado runtii aan fiicneen aan qurux badneen. waad ogtihiin sida walaasheen xildhibaanada halkan bay ka tiri gabdhaheeni wiilasheenni dadkeenni dhallinyaradeenni maanta waxay ku baahsan yihiin caalamka oo dhan iyadoo qof walba iyo mid walba meeshiisa ay dhibaato ku haysato. burburka dhibka uu noo geystay socialkeenni dhaqankeenni dhallinyaradeenni ubadkeenni wixii oo dhan waa uu saameeyey. waxaan u baahannahay maanta inaan helno waqti dadkeena ay ka kabtaan. muddaa la soo dhoobdhoobay laga shaqaynayo dowladnimo inay Soomaaliya yeelato lugaheeda ay ku istaagto oo ay noqoto Soomaaliya meeshii aan ahaan jirnay. waxaa laga yaabaa in fara badan oo dhalinyaro ah maanta inaynan xasuusan karin ama aynan ogeyn waxa ay dowladnimo tahay waxa ay Soomaaliya soo martay iyo dowladnimada aan soo marnay. burburkaas kaliya ay la kowsadeen. marka waxaan rabaa inaan u sheego xukuumaddeena iyo mas'uuliyiinteena waddankeena in Soomaaliya lagu soo celin karo kaliya in la wada hadlo la fariisto oo wax la kala qaato wax la siiyo. ma jirto Soomaaliya waxa u imaanaya dibadda hadday dowlado yihiin iyo hadday ummado kale yihiinba oo Soomaaliya ka yimaado loo hagaajinayo. waxaa khilaaf xoogan uu ka taagan yahay qaabkii maamul loogu yegleeli lahaa dowlad goboleedka Galmudug. khilaafkan ayaa waxa uu soo ifbaxay kadib markii maamulka Ahlu Sunna wal Jamaaca ay beeniyeen
ama ay qaadaceen guddiga doorashada dowladda federaalk Soomaaliya ee magacooday gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha. sidoo kale waxaa jiray musharaxiin u taagan xilka madaxweynaha maamulka Galmudug kuwaasoo qaadacay guddiga dowladda federaalk Soomaaliya oo sameysay maamulka Jubbaland, waxaana ay yihiin musharaxiintaas Dawaal iyo Kamaal Guutaale, waxaana ay sheegeen inay ka hor yimaadeen ama aysan aqoonsaneyn guddiga farsamada maamul sameynta dowlad goboleedka Galmudug oo dowladda federaalk Soomaaliya magacowday. tani markii dowladda federaalk Soomaaliya magacowday maamulka Galmudug guddigiisa doorashada ayaa waxaa jiray kulamo kala duwan oo ka socday magaalada Muqdisho ee magaalada Kismaayo. Ahlu Sunna wal Jamaaca gaar ahaan madaxa xukuumadda warqad ka soo baxday ayaa waxaa lagu qaadacay guud ahaanba guddigaasi, waxaana jira dhibaato xoogan oo haatan maamulka Galmudug cagaha la galay. dowladda federaalk Soomaaliya waxay maalmihii la soo dhaafay isku dayeysay inay maamul u dhisto Galmudug, waxaana dowladdu ay sheegtay in Galmudug loo yegleeli doono maamul Galmudug loo dhan yahay. waxaan jirin halkay saldhiga doonto xiisadani kasoo cusboonanaysa maamulka Galmudug iyo waxa lagu dhameyn doono xiisadani. saaxiibadaynu jecelnahay warkii aad ka daawanayseen warbaahinta Halbeega Wararka, intaasi ayaan kusoo koobayaa subaxnimadani. nabadgelyo, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.